gaadiidkan nooca dagaalka ee taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu kala wareegay taliska howlgalka Mareykanka ee Africom ayaa waxaa loogu talagalay inay ku howlgalaan ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee Danab. Gaadiidkan ayaa waxa ay qayb ka noqon doonaan howlgallada maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab looga saarayo dalka. Munaasabad kooban oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha Dancadde ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil ka socotay howlgalka Mareykanka ee Africom. Cornel Werner oo ah u qaybsanaha arrimaha ciidamada ee dowladda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ku wareejiyay taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage gaadiidkan nooca dagaalka oo ah kuwa aan xabadaha karin ee dowladda Mareykanka ay ugu talagashay ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kumaandooska Danab oo loogu talagalay howlgallada dalka looga saarayo Al-Shabaab. Dowladda Mareykanka ayaa waxay qayb ka tahay dowladaha caalamka ee Soomaaliya dhinacyo badan ka taageera iyadoo ay taageeradooda qayb ka tahay dhismaha iyo qalabeynta ciidamada xoogga dalka.